kulanti waxaan u wanaagsan ku soo dhawaada xaaji official waa aniga Cabdiraxmaan Xasan Cumar waxaan ila wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay Club World Cup oo meel xiisa gaaray wareega 8 dhamaadka Chelsea vs Palmeiras Fluminense vs Al Hilal PSG vs Bayern Munich Borussia Dortmund vs Real Madrid wax walba ku saabsan Club World Cup xiddigii xal u cadeeyay Gonzalo Ramos oo baahidi Mbappe xidig walba Real Madrid noo doonayd oo tirtir wax walba ku saabsan xanta suuqa kala iibsi ku soo dhawaad xaaji official haddii aad nagu cusub tahay ama channelkan uu soo gaaro subscribe saar like noo dhisiin share garay waana ka imaad ilna daawashada muuqaalka haddii barteen Facebook aad naga daawanaysiin follow iyo like share nagu dhiirigeli oo na gaarsii waxaan ku bilaabi doonaa naadi kubadda cagta Borussia Dortmund iyo Monterrey oo wada ciyaaray kul xamaasadiisa watay oo Borussia Dortmund loo naxsaday bandhig ciyaareed aad iyo aad tayadiis u sareyso wax walbana waxay ku bilaabatay jug iyo jangalo Borussia Dortmund ayaana goolka bilowday waxay daqiiqada 14aad garisay xidiga noowaha oo u bilaabay ninkaasoo bandhigiisa Yurub heersare oo ka joogo maadaama Champions League oo ka wacdareeyay sidoo kale Club World Cup kana wacdar oo ka wado 14 daqiiqo markay mareysay shabaq waa u gaaray isla daqiiqada 24aad kaambiyada horan waa uu labeeyay marka wax walba waa isku dhamaadeen ayaa la dhahay goolashii Borussia Dortmund inay sii socdaan ala fira wax walba ilaa waxay isbedeleen markii Campbell laga soo laabtay naadi kubadda cagta Monterrey ayaa keensatay gool goolka calanka maadaama uu ku dhamaaday 2 gool iyo gool kulankii u dhaxeeyay labada naadi Sergio Ramos ayaana qarka laga tuuray asigoo wareega 16 ku haray maadaama 8 oo u gudbi waayay marka wax walba oo ku saabsan kulankaas intaas ayuu ahaa Borussia Dortmund ayaana ka soo baxday waxaan u gudubtay wareega 8 iyadoo ku aaday midkood naadiga soo baxay Real Madrid iyo naadiga kubadda cagta Juventus sidoo kale waxa wada dheelay naadiga kubadda cagta Juventus iyo Real Madrid kulan xamaasadiisa watay kulan ishaystay kulan bandhig high level ee soo bandhigtay naadiga kubadda cagta Real Madrid iyo xidigoodii cusbaa ee garabka midig ee daafac ka ciyaaray Trent Alexander-Arnold Juventus iyadana soo weerartay kulanku isku dheelitirnaa walo Real ay ugu cadcadeed kulanka bandhiga weerarka Gonzalo Ramos dhaqaaqiisa Fini malakala harin ilaa Arda Güler marka wax walba waxay noqdeen in ugu dambeyn Real Madrid ay sasabato kaambiyadii 2 daqiiqadii 54aad inay ka hesho gool uu dhaliyay Gonzalo Garcia gooshaas oo caabi xidiga garabka midig ee daafaca Trent Alexander-Arnold lab oo soo qaaday ayo Gonzalo Garcia madax ku dhuftay sidaasna goolkaas qora ayaa kulan ka dhashay wax walbana waa ay dhamaadeen ciyaartana wixii la soo weeraro badalo la sameysto Mbappe la keeno wixii dhan waxay noqdeen gooli waxba inay ciyaartaas ku dhamaato sidaas ayayna u gudubtay wareega marka Real Madrid oo soo gudubtay Borussia Dortmund oo soo gudubtay ayaa isku arki doona wareega 8 dhamaadka marka semifinalka waxaa la sugi doonaa Real Madrid iyo Borussia cidi soo baxdo PSG iyo Bayern Munich qofkii soo baxdo waxaa la isku arki doonaa semifinalka halka Palmeiras iyo Chelsea isku dhici doonaan qofkii soo baxo wuxuu ku dhici doonaa Al Hilal oo si wacdara leh ku soo dhigtay ku soo harsiisay naadi kubadda cagta Manchester City iyo Fluminense oo iyadana Inter Milan soo reebtay semifinal iska level dhinacan jira semifinal shub ee dhinaca soo jira marka waa arki doona finalkan laba naadi qora ima doonto leenkan oo Fluminense iyo Al Hilal iyo Chelsea iyo Palmeiras hal naadi laga rabo final imaato Real Madrid PSG Bayern Munich iyo Borussia Dortmund hal naadi laga rabo inay finalka imaato waa arki doona wuxuu ku dhamaan doono marka kulankaasna intaas ugu bixi doona ama final wada gudbi doonaan midkooda marka Club World Cup meel xiiso mara intaas ay ku soo gabagabeynayna muuqaalkeeni maalinlaha ahaa waxa ka codsanayaa inaan mar kale hadii muuqaalkan uu ku soo gaar subscribe aadan ahayn inaad subscribe saarto like dhaasiin share gareyso si uu gaaro asxaab badan hadii barteena Facebook aad ka daawanaysano waxa ka codsanayaa follow iyo like share aan iska darto oo noo caawiso gaaridda meel sare mahadsanid